السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايواليال كسو دوادا سحاني اوفيشال يوتيوب. عاوة سحاني اوفيشال يوتيوب waxaad kala socon doontaan falanqeyn majaajilooyin iyo rag badan iyo isxifaalan inaba caadi ahayn. waxaa caawa saxaan official youtube mareegta aan ku leeyahay baraha bulshada youtube-ka iyo facebook-ka iyo instagram-ka intuba friends badan friendskayga qaaliga waxaan leeyahay aan ka rajeynaya inay subscribe like and share ay ku boodaan youtube-ka. waxaa caawa marti inoo ah Captain Serious oo aad uga faadoodo arrimaha siyaasadda, dhalinyarada, falanqeynta iyo youtube-ka. Captain Serious welcome to the Sahana official YouTube. waan dhawahay kusoo dhawaada khiyaarta Sahana official waa Captain Serious waxaan joogaa saaxiibkay fanaanka qaaliga Sahane oo aan rabno maanta inaan waxa weeyaan muxuu ahaa daawadayaasha aan u qaraaxayno si fiican aan ugu sheekayno Sahanow YouTube-ku horta niyo aan YouTube marihi صح inaan furtaan si jecel hadoo alla idmo oo aan ku rajooynahay waan gartay laakiin YouTube-ku waxaad moodaa sidii bari 2018 baa waxa soo baxay wax la dhaho forex ha صح forex-ku waa waxa dunida ka jiro lagu shaqaysto صح oo lacag laga helo waan gartay laakiin ugu yaraan 2 sano la bartaa oo wuxuu u baahan yahay waqti dheer in waqti la geliyo waqti dheer buu u baahan yahay waan gartay YouTube marka forex-ka markuu soo baxay niman Soomaali oo yaryar baa xoogaa ka bowsaday maalmaha lacag la gelgeliyay saaxawar kasta waxay tiri iyo waan geli qof kasta waan geli lacag baa meesha laga hambay waan gartay reer Muqdisho waxa professional go'aan baan waa la galay la galay waan gartay reer Nairobi waxa u badnaadeen reer Muqdisho u badnaadeen Nairobi xataa waa laga galay صح anu se lacag ma gashanine xataa mid walaalka iga yaraa galay oo lacag yar uu haystay oo waxa weeye $4,000 xagee ugu dambeeyay marka meel ku dambeeyay ma ilaa say waan gartay macal isagii uu forex-ka curay marka macnaha waxay tusaale u tahay fudaydka Soomaalida Fudaydka waxay aqoonina shab iska dhahan waxay aqooneen shab iska dhahan marka 2018 dad iyo dawlad forex-ka waa lagu daatay صح forex-ku waa suuq caalami oo jiro lacagaha qalaad ama foreign exchange-ga lacagaha lagu kala bedesho صح oo jiro way waan gartay laakiin wuxuu leeyahay muxuu ahaa cilmi muxuu barashi iyo cilmi gaar u barashi cilmi gaar u leeyahay waan gartay ma fahanto waan gartay marka Soomaalidu hadaa timo jaraan meel ka furta ama farmasho furto konton farmasho laga gara fur bacmadow baa lagu gura waan gartay ma fahanto marka forex-ki marka umad Soomaalidu way ku ceyroobeen waan gartay tii oo kala maanta taagan haye xagee ka taaganta dhanka gabar jirta gabar kasta iyo nin kasta iyo oday kasta iyo habar kasta waxay tiri YouTube baa laga dhargay juudi ka dhigta shaqo ka dhigta waan gartay dadka ilaa hadda YouTube ku jira waxa kamid ah aad u garanayo furtay ilaa hadda waxa weeye shirin aan ka cunin naftiisana hafra nin la baxay musaddiq afar sano ku jira subscribe-giisuna waa 20 subscribe-giisu waa 17 comment-giisuna hal qof ma dhaafo waan gartay waan gartay waxaa kaloo kamid ah nin la dhaho Ukash media ilaa laba YouTube niyo Ukash media waxaan ku rabaa 2016 inuu YouTube lahaa 16 mara wajadiisuna ma dhaafto afar ilaa hadda kamu qadaynin waan gartay waan weydiiyay musaddiq wuxuu leeyahay bisha waxa ii soo dhacda $4,000 baa ii soo dhacda $4,000 hal meel aan jabaati joomada ka cunaa meel niman mukaambaaleeyihiin waan ka cuntayna inna lillahi raji'un qoliyaha guryaha dhisay sidii artay xamaaliyada Soomaaliya dabaqada weyn hadda sidii ka socda dhisa makhaayada yar oo ay gabdhahooda fureen baa jira makhaayadaasan ka wada cuntayna ani isaga waan gartay isma dhaaftaanba isma dhaafno dhanka kale wax ku sheekeen dheeri baymaa $4,000 baa ka soo $4,000 baa ii soo dhacay waxa loo sheegay marka Soomaali marka waxa loo sheegay Soomaali waa taqaanaay qofka $2,000 hela guriga ugu qaalisan buu sii degan yahay uu guuri markaaba makhaayada ugu fiican ku watee sax Soomaali horta waa ma kale sax anigu habeenkan $100 helo صح waxaan dhigaa hoteelada top ku yaal Nairobi oo dhan baa gilgilay waa shaqada Soomaalida haddaad aragto nin Soomaali oo lacagna waan haystaa meelahan ku wareegsanay dabayl buu ku sheegaya shaqada waa beeraale waa waxa ka jira shaqada YouTube waxaad iga warantaa ninka dhaawacay
ninka la dhaho wacane wacane ha ninka isagu waxa meesha uu ku hayaba oo ilaahay uu dambi jirto qiiro beena jacayl baa gabar ku dhacday xaggay ka booday nuruga beena alifan aan gadmaynin buu meesha ku hayaa sax marka ninkaas waa ninka ugu bahal badano way ugu dakhray wuxuu yiri $8,000 baa meesha ii soo dhacdo oo Western Union ka soo qaatay horta xagee lacag ka soo qaatay youtuberada ma qodo aan hadda bilaabay ma qodo meel ka soo qaatay Western Union bangiga dadka waa laga dargada hay raaca inba ku jira anigu wax xoog ka hay ilaa hadda ma jirto waxa laga dargay ma jiro sax shuruudihiisa waxa kamid ah 80,000 oo saacadood daawasho inaad leedahay wajin hours waxa ana wareysay 8,000 maya 80,000 wajin hours buleeya wuxuu kaloo leeyahay hada shaqa sugaysa markaa Soomaaliya waad maqlaysaa ninka ku sheegay ninka shaqa badan bay sugaysaa baashan share la dhax subscribe ma taqaana subscribe calaamada gudan ee gabadha baa iska moogta aya subscribe ka waa inuu ka kaco muxuu ahaa kontonka markaad gaadho $100 ku soo dhici madana waa lacagta ma inaa kusii sheegaan rabaa anigu waan ogahay ma rabo inaad si for kiska aad ku kalsoonto waan gartay ragga hadda farta miida loo daray baan aniga adi ka midna adu laakiin waad furatay anu hadda furtay oo rag baa horta ayaa ii carab laadiyay sax ay ku jiraan ninka musaddaq iyo wacani iyo cokaash ay number 1 ka yihiin oo isa cabatumay sax anoo iska caadi oo socdo dhaantooyinka iska tumanay sax waxa leeyahay way ka daadsan tahay halkan waa laga bariisayaa soo gal horta tilmaantooda aad bay ugu mahadsan yihiin sax وانا uga mahad celinayaa ta kale laakiin waxaan aad ola yaabay sax nin la dhaho Qadaafi ina taqaan mogi Qadaafiya horta Qadaafi maalin baa ii sheegay Qadaafi ninka Qadaafi wuxuu u sheekeeyay maalintuu jiray 16 sano magaalada joogay Qadaafi magaalada wuxuu soo galay muxuu ahaayay magaala dhanba wuxuu soo galay horta ninkan baadiyo ku soo koray sidiisaba magaala dhan wuxuu soo galay 2015 miyaa magaala dhan soo galay magaala dhanba 16 uu soo 15 muxuu ahaay magaalo ninkan nin magaalo ku dhashay miyi buu ku dhashay miyigaas uu soo koray social media uu iska galay Qadaafi buu la baxay 70 jeer baa Facebook-giisa la xiray yaa la xiray oo macnaha magac lagu haystaa dunida waad ogtahay shakhsiyaadka caanka magacyadooda lama bixi kartid waan gartay ma fahantay macnaha seerogoysnimo xagga magac ku saabsan buu sameeyay madaxweynaha Qadaafi Libiya ku xadgudbay ninka soo dahabka haystay waan gartay ninkii magaciisu la baxay sax markii ninkii uu dhintay oo la xaqiijiyay uu dhintay baa loo fasaxay sheeka waxa hadda ka hor aad ii taabatay Qadaafi markii ugu horeysay ee uu magaalo imaaday sheekada kala kumanta markii ugu horeysay magaalo u imaaday horta ninku reer buu ku soo degay qaraabada marka waa ogtay baadiyaha go shaala oo waxa weeye tifmay oo gas midhana oo dhegmada iyo gubtaanyada waxa ku jirta aadan mareyn inaba caadayn ii watay buu garabka ku watay oo kii geelo kala imaaday ma bahal macawuso wuxuu qawaay hore waa xasto macawuso waxa la xiran jiray sarandadii iyo soo laami jiray way kuduudan jireen taa waxa la jiray Ceylon iyo cari gadi iyo burjo salaax ilish sheegi jiray salaax wixii uu qabay waxa dhalo waan gar buu qabay ninkii magaalada reerkii waa la keenay waa loo qubeeyay waxaa la yiri abshir muxuu ahay lacag baa la dhiibay muxuu ahay soo arag bixi magaalada waa sidii ku geeyay waa la arag bixin magaalo noqday sax halkii baa dugsi laga geeyay iskool laga geeyay magaalada horta ninku saas uu ku soo galay muxuu ahay social media qaabka ugu soo biiray sax baan rabaa inaad wax iga taabato Qadaafi ilaa xog badan baad ka haysaa horta ninkii ugu horeeyay nin baa soo furay maana telefoonka muxuu ahaa caasha iyo waxa ma aqaanay ee kistuwe telefoon baa loo soo galay markuu soo galay oo ninkii ugu horeeyay u furay nin baa soo ahaa ana nin baa soo furay nin baa saan waaga nin baas baa jiray muxuu ahaa nin baas baa waaga lagu sheekaysan jiray nin baas kan u furay nin baas naba soo gaarin buu xanuun wallahi geel baa la jooga markaas Facebook iyo WhatsApp way dambeeyeen nin baas kan u furay account baan u geeyay wax kasta uu hagaajiyay marka ninkii sidii waxa weeye uu update ku noqday oo ninka ugu horeeyay ee social media u furay dadka waxaan u sheegayaa Qadaafi ninka ugu horeeyay ee social media u furay ee waliba nin baas u furay laakiin maanta inuu Captain Serious yahay laakiin maanta isaga iga caansano dadaal buu sameeyay wuxuu inuu ka yiri mira dhaliyad muddo xagga Facebook aad baa loo follow gareeyaa oo
wuxuu soo dhigo commenti kuusan buu helaa waan gartay laakiin hadda waxaan maqlay in farta miida loo diray laftiisa la yidhi youtube meel la dhaha laga dhargay oo waxay xaydanay baryahan buu wuxuu waday baraarujin aad u far badan iyo tashkiilin horta tiktok buu bilaabay sidii baryahan inuu sida gabdhaha iska duubo tiktok ah oo uu niikiyo duhaas isku dardaaro waxaad dib igu celisaa qolihii youtubeleyda qolihii youtube dib ugu celi ay qolyaha youtubeleyda way fara badan yihiin oo Soomaaliya hadda waxaan ka baqay in youtube wax daawada la waayo sidiisaba ilaa dadku ay ilaa macnaha inaad u daawata mooyee inay isdaawata mooyaane waa gartay youtube-ku hadda waxaa kusoo biiro farta miida loo daray nin la dhaho mahad colaad macallinkii baa hadda la dabaajiyo dugsigina mu xidhay ya dugsiga mu xidhay dugsigiya mis dugsiga mu haynin ninku dugsigii wuu xidhay wuxuu yidhi waa inaan jeega xirto Ay. style aan noqdo model aan noqdo si la ii daawado waxoogaa sigisbaagas ku yaalo jimna wuu bilaabaan maqnaa ya oo mahad yaa biraha u qaadi doon mahad caloosha anumaba go-aysa Ma wada hawa, taban ugu qaado ninku jim. markuu darinaya calooshiisa ma goodo moogta waa runtaa ma gado way soo riyaxantay moogta dari buu leeyahay waa saase adoo ducaaya xaasin waxaad leedahay macallinka wuxuu furtay ha wuxuu furtay macallinkii youtube uu furtay macallinkii youtube furtay ha haye marka macallinka waxaan ka baqi inuu ka cararo waayo waxaa looga baahan yahay 50 kun oo subscribe kunta kuna oo subscribe meesha lacag kusoo dhacday waa laftaada degtay ha degdegin dembiga qabso ahaan ya hadduu doonin derbiga qabsi waa igu soo aradnaa ma fahantay war marka Eh, macallinka marka qolyo u tagay moogtahay Aye. wuxuu yidhi tala iga siiya maxaa lacag badan oo aad loo daawada oo lacag laga sameeyaa sax maanta ninkii macallinka ahaa yaro kaloo macallimiina xataa nin kale waxa isna sheeko ula dhaw waxaa la youtube buu furanay war ninka macallimiinta ka gaadh ninka macallimiinta ka gaadh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii kaftanka falanqeynta dhalinyarada khiyaarta sarafta aad u mahadsantihiin marka sheekada mahad calaaqan u dhamaystiri macallinka inaan muxuu ahaa xifaaleey aad baan u jeclaa Aye. ma fahantay isagoo meeluhu igu caayaa igu caayaa gartay ilmaadeer waxaa la ismaxanow aye marka wuxuu yidhi maxaa daawasho badan oo lacag laga samayn karaa asaga ku weydiin Ah. sax ma fahantay Aye. marka waxaa lagu yidhi waa inaad soo gelisa naagma naagta ka daba weyn dadka laaga sheekeeyey aye iyo gabdho gabdha ka xabad quruxsan tahay waa inaad soo geliso waa inaad oo soo hadda gelisa wuxuu ku jiraa baadigoobkii hadda wuxuu raadinayaa munkarba munkarku ka weya ma macallinkii waa munkar raadinay hadde Aye. madrasa hadaad soo gelisid oo quraan akhri Ah. yaa daawan Cidna. aniga hadda kabta serious ahaan Ah. facebook markaan ku jiro Markaa madow quraan iyo buu sheekh gaadhay. aan sheekh xasan markaan arko waa isdhaafiya بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت marka dadka iska soo qaado anoo kale Eh. cid daawanayso Eh. madaraso Eh. iyo sheekh Maxaa macallin macallinka marka? ma jirto معلم هذا محل ya معلم محل macallinka waxaa leeyahay macallin muxuu halkaa kaga wad waad ku haysaa wax alaali wixii kuu gadmaya raadi قال له ma fahanta marka macallinka waxaan odhan lahaa ha ka niya jabin foreska xataa dadkii ku daatay buu ku jiray oo ninku waa madaalo markaas madaalo weeye laakiin Waa madaalo caadi. waa xisaalo oo inuu ka carraan ka baqi oo wiig shafayn teeda kale ninkan aan kuu sheegi Eh. madaalo mataqaana ninka la yidhaha tiimbat ifa looga yaqaani jiray تيم بدر ha كفاعة. ninkan ninkan anzel ninkan meelaha wadada caanaha wareejiya انزل تي في انا قد دوا تيم بدر جيرسا tiimbat تيم ha بدر ما نقضى tiimbat maalinka youtube-ka la furayey anaa clip warey lasoo dhigay صح ninkaasi youtube-ka intuusan furanin Mhm. nin xigmad luu ahaa صح oo hadalkuu sheegaba lagu qoslo Aye. laakiin haddaad daawato wuu guray wuu gurayba xigmad male sababta keenima ku sheegay viewskiisu hadda 20 ma dhaaf sababta keenima ku sheegay Sax. ninku warkiisii uu maalay nin warkiisa maalay maxaa u yaalo wax u yaalla ma jirto Hadda- arday xikmadaada maasho wax ku yaalla male hadda wuu murti guuray gurba ka dhacay intaana tiimad baan aan dib ugu soo laabana barnaamijkeeni khayrta sharafta leh xifaaleyn badan rag aan jecel lahay oo dhalinyaro ah oo youtube ley ah macallimiin ah isku dhex jira halkan ayaan ku magaranaysa ayaan ku qandhuufanay barnaamijkan waxaa la dhahaa laba kala xanaaqaan baa la dhahaa ha socdo caawa barnaamijkeenii falaqeynta dhalinyarada iyo faahfaahinta halkaas inoogu ogyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu